dowladuhu waxba ma arkaan gudaha bacdan waxaa ku jira $100,000 talo maxaan ku iibsadaa ma guri qaali ah mise drone mise gaari qaali ah laakiin nasiib xumo ma isticmaali karo lacagtan sababtoo ah lacagtan waa wasakh dirty money ma aha wasakh jermis ah laakiin waa wasakh sababtoo ah waxay ka timid falal iyo ficilo sharci darro ah okay haddaba waxay haysta dhibaato lacagtan ma dhigi karo bangi kalama talaabi karo xuduudaha wadamada kale waayo waa lagu qabanaya ma sharixi karo halka ay ka timid marka waa inaan nadiifiyaa si aan u nadiifiyo waa inaan sameeyaa wax loo yaqaan money laundering halkan ayaa waxaa ka bilaabmaya sheeko yaab leh sababtoo ah dunida oo dhan trillions of dollars ayaa sanad kasta sidan u wareega iyadoo gebi ahaanba aan la arkaynin scale of the problem ama xaddiga ay leedahay dhibaatadu scale of the problem ama xaddiga ay leedahay dhibaatadani dunida oo dhan waxaa la qiyaasaa in qiyaastii 3 ilaa 5% GDP-ga caalamku uu ka yimaado dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo sharci darro ah waa ku dhowaad 4 trilyan sanadkii waxayna u badan yihiin dhinacyada mukhaadaraadka ka ganacsiga dadka hubka iyo ganacsiga xayawaanka sharci darrada ah dhammaan howlahaasi waxay u baahan yihiin lacag laakiin su-aasha muhiimka waxa weeye sida lacagtan u dhaqaaqda ama dunida ugu wareegtaa iyadoo aan la arkin jawaabtu way fududahay waa la isticmaalaa nidaam loo yaqaano flying money ama lacagta duusha what is flying money flying money ma aha lacag si toosa u duuleysa laakiin waa nidaam qarsoon oo ku dhisan kalsooni shabakado iyo dheelitir lacagtu dhab ahaantii sideeda uma dhaqaaqdo balse qiimaheeda ayaa la isku dheelitiraa meelo kala duwan oo dunida ah waxay u dhaqaaqdaa sida ilma aragtay invisible si fudud looma tixraaci karo waxaa yaab leh nidaamkan money laundering-ka amba lagu meedhayo ama lacag dhaqista kama uusan bilaabin dambiyada hadda ka dhacaya dunida aynu joogno waa nidaam soo bilaabmay in ka badan 1,000 sano ka hor origin ancient China xilligii boqortooyadii Tang Dynasty ee Shiinaha ganacsatadu waxay la kulmi jireen dhibaatooyin badan waxay badeecooyin u iibgeyn jireen magaalooyin fogfog iyaga oo ku nool meelo kale lacagta birta ama coinska caadiga ah way cuslayd khatarna way lahayd oo lama qaadi karo sidaas darteed waxay la yimaadeen xal arrintan lacagta lagu maarayo tusaale ahaan ganacsadaha wuxuu joogaa magaalada Beijing ee dalka China wuxuu haystaa 1,000 coin wuxuuna rabaa inuu u safro Dubai mana qaadi karo halkii uu la safri lahaa coinskan culus wuxuu coinska siinayaa ganacsade la isku halayn karo oo la jooga Beijing isla magaaladu degan yahay ganacsadahaas wuxuu siinayaa ninkan warqad yar paper note kadib maxaa dhacaya ganacsade wuxuu u safrayaa magaaladii alaabtu taalay ee Dubai markuu gaaro wuxuu warqadii tusayaa wakiil kale oo ganacsadaha hore isku xidhan yihiin wakiilkaas wuxuu siinayaa isla lacagtii oo dhammaystiran saas darteed lacagtii toos looma safrin lamana qaadin laakiin waxaa safrayaa waa kalsooni tani waxay ahayd mid ka mid ah qaababkii ugu horreeyey ee lacagta warqad ahaan ay u shaqayn jirtay waxaa loo bixiyey flying money ama lacagta duusha haddaba tatawur sidee bay u soo socotay hawshani waqti kadib bulshooyinka Shiinaha ee ku nool adduunka daafiisa kala duwan waxay dhisteen shabakado kalsooni ku dhisan kalsoonidaas waxaa aasaas u ahaa qoysaska lacagaas ku diraya ganacsatada iyo kalsooni dheer oo dadku markay maalgashi sameynayaan ay isku qabi jireen waxay abuureen nidaam maaliyadeed oo ka baxsan gebi ahaan bangiyada bilowgii waxaa loogu talagalay inay ku caawiso ganacsiga laakiin
dambiilayaashu ama dadka criminalska ama drugska ka shaqeeya waxay ogaadeen in halkan ay ku jirto fursad. nidaamkan waxaa loo adeegsan karaa dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah, waxaana uu isku bedelay waxa loo yaqaan shadow banking system. aan fududeeyo sida uu maanta u shaqeeyo qaabka lacagaha loo meedho. tusaale, master Qasim oo ku nool dalka Shiinaha ayaa wuxuu rabaa inuu $2 milyan kula safro dalka Mareykanka. laakiin Shiinuhu wuxuu leeyahay xad ama limits lacagaha dalka laga saari karo. marka wuxuu adeegsanayaa ninkani master Qasim broker ama dilaal. haddaba isla waqtigaas USA ama Mareykanka gudihiisana nin darooga iibiya ayaa wuxuu haystaa isna $2 milyan oo kaash ah oo ah lacagta dheertiga ah. macnaheedu sifo sharci darro ah ayay kusoo gashay weeye. wuxuu rabaa inuu nadiifiyo. kadib maxaa dhacaya? labadooduba waxay u tegayaan dilaal si uu isugu xidho. markaa maxaa dhacaya? master Qasim lacag ayuu ku wareejinayaa dilaalkii Shiinaha joogay ee isku waddanka joogeen. ninkii daraaga ka shaqeeyay ama mukhaadaraad ka shaqeynayna lacag ayuu ku wareejinayaa dilaalsna Mareykanka jooga. labadii dhinac waxaa isku dheeli tiraya dilaalintii. kadib Qasim wuxuu u safrayaa Mareykanka. dilaalkii Shiina joogay ayaa wuxuu la soo hadlayaa kii Mareykanka joogay si uu lacagtu hayo ugu wareejiyo. halkan wax lacag ahi may safrin, lagamana transfer gareyn. saas bay lacagtii uu ku helay master Qasim isagoo Mareykanka u soo safray. natiijadii maxaa soo baxay? master Qasim wuxuu helay maalgashi dibadda ah oo lacagtiisa uu Mareykanka la jooga. ninkii drug cartelka ahaa ama hogaamiyihii drugska niman ka shaqeeya wuxuu helayaa isna lacag nadiif ah oo China u taala. bangiyadana wax shakiya oo ay ka muujinayaan ma jiraan. haddaba waxaa jira qaab kale oo lacagaha loo maydho oo loo yaqaan isagana trade based money laundering. waa qaab ku dhisan ganacsi, laakiin waxay sii noqotay mid casri ah. halkii lacag si toos ah loo diri lahaa waxaa la isticmaalayaa ganacsi trade. tusaale ahaan, shirkad Chinese ah ayaa waxay iibisaa talaagadaha. shirkad Mexico ku taalana waxay iibsanaysaa talaagadihii. laakiin khiyaanadu waa halkan. invoice baa la isticmaalayaa. alaabta 10 milyan ayay ahayd tusaale ahaan, waxaa lagu qorayaa 8 milyan. farqigu waa 2 milyan. waana qiimo qarsoon. lacag toos looma dirayo oo lacag toos loo dirayaa ma jirto. alaab unbaa la diray, waxaana ku dhex qarsoon qiimo $2 milyan. tan waxaa loo yaqaanaa trade based money laundering. waana mid ka mid ah farsamooyinka ugu xoogan ee maanta la isticmaalo maadaama ganacsigii uu heer aada u sarreeya marayo. okay, ugu dambeyntii, why is it so hard to stop? maxay u adag tahay in la joojiyo ama lasoo afjaro nidaamkan way adag tahay in lasoo afjaro waayo wuxuu isticmaalaa ganacsi saxa oo toos ah oo aan la qarsooneyn. wuxuu isticmaalayaa wadooyin ganacsi oo saxa. wuxuu kasoo degayaa entry portskiibu kasoo degayaa wadamada. wuxuu ku dhisan yahay kalsooni. raad amba paper trail aad ayay u yartahay in laga helo. xataa dowladuhu dhibaatooyin weyn ayay kala kulmaan arrinta iyada. dhinaca kale marka la eego sii xoogeysanaya waayo hadda waxaa jira applicationo encryption leh oo aan la akhriyi karin fariimaha la isku diro. ganacsi caalami ah oo very complex ah oo aada isku dhex galay, iyo lacagaha digital finance-ka oo iyaguna fududeeyey soo afjiritaanka hawshanyada. global impact, saameynta uu dunida ku leeyahay nidaamkan waxaa isticmaala ama loo isticmaalaa drug cartelska, ka ganacsiga xoolaha duurjoogta, kalluumeysiga sharci darrada ah, for networks ama xiriiryo forgery ah, luxury goods markets iyo suuqyada alaabaha qaaliga lagu iibiyo ayuu habkan ka shaqeeya. runtii waa nidaam caalami ah oo aamusnaan oo si hoose u shaqeeya oo si xawliya weliba isku sii bedelaya, kusii horumaraya, kuna sii xididaysanaya. waxaana u dhaqaajiyaa nidaamkani lacag gaadhaysa trillions of dollars sidaan hore soo sheegnay. ugu dambeyntii waxaan kusoo xidhaynaa lacagta duusha ama flying money ma aha kaliya fala dambiyo,
waa kalsooni iyo is-aaminaad network ku dhisan xidhiidho ku dhisan is-aaminaad weeye. kalsoonidaas oo loo isticmaalayo dhinacyada mugdiga ah ee dhaqaalaha adduunka. lacag toos ma dhaqaaqdo, lamana transfer gareeyo, laakiin waxay u dooshaa amba loo diraa qaab aan la arkaynin. inta badan ma aragno gebi ahaanba.